Baysaw ayaa maanta oo Arbaco ah goobjoog u ahayd gacan ku haynta qaybaha milatariga ee xuduudaha dalkaasi, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in la maqlayay rasaas ka dhacaysa meel u dhow qasriga madaxtooyada ee caasimadda Baysaw, taas oo muujinaysa isku day kacaan ah oo lagu doonayo in lagu khalkhalgeliyo dalkaasi. Ilo dadka deegaanka ah ayaa sheegay in cutubyo ka tirsan ciidamada dowladda lagu daadiyay wadooyinka caasimadaas, kuwaas oo isku dayay inay xakameeyaan xarumaha dowladda, iyadoo dad goobjoogayaal ahi ay soo warinayaan inay maqleen laba isku dhac oo ka dhacay agagaarka madaxtooyada, kuwaasoo la isku dayay inay ka hortagaan faragelin ay ku sameeyaan ciidamada ilaalada madaxtooyada iyo kuwa nabad sugidda. Madaxtooyada ayaan weli war rasmi ah ka soo saarin, iyadoo laga cabsi qabo in xiisad siyaasadeed iyo mid amni ay ka dhacdo dalkaasi. Dadka siyaasadda ka faaloodo ayaa tilmaamay in Ghana ay dhowrkii sano oo la soo dhaafay ay la kulmeen isku dayo kacaan oo kala duwan, waxaana laga yaabaa in xaaladda hadda jirto ay ka turjunto khilaaf gudaha ah oo u dhaxeeyo aasaaska ciidamada iyo maamulka rayidka ah, gaar ahaan marka la eego xaaladda siyaasadeed iyo xasilooni la'aanta hay-adaha dowladda. Hay-adaha caalamiga ah ayaa si dhow ula socdo horumarka, iyagoo qaar ka mid ah ergada diblomaasiyadeed ay muujiyeen walaaca ay ka qabaan saameynta dhacdooyinka ay ku yeelanayaan dadka rayidka ah iyo amniga gobolka, iyagoo ku baaqay in la isxakameeyo oo si degdeg ah loogu soo celiyo xasiloonida siyaasadeed. Tan iyo 1974 Ghana waxa ay aragtay 9 kacdoon iyo isku day kacdoon, kuwaasi oo ugu dambeeyay sanadkii 2020 markii Embalo oo xukunka la wareegay.